madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta safaran hore loo shaacin ku soo gaaray magaalada Burco waxaana ka hor madaxweynaha iyo wafdigan uu hogaaminayay intii aanay soo gaarin magaalada Burco duleedka deegaanka qoyta kaga hortagay dadweynaha u tiro badan iyo gaadiid uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayir waxaana madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray gudaha magaalada Burco ugu horeyn ba ka dhagax dhigay taliska ciidanka booliiska dhismo cusub oo taliskaasi yeelan doono sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland xariga ka jaray dhismaha wajiga koowaad ee aqalka martida ee gobolka Togdheer isagoo sidoo kale dhagax dhigay wajiga labaad ee dhismaha aqalka martida ee gobolka Togdheer uu yeelan doono kaasi oo uu madaxweynaha uga warbixiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer dhagax dhigay guriga noqon doona guriga madaxweynayaashu ay ku nastaan ama ay yimaadaan deegaan gobolka Togdheer magaalada Burco khaasatan ayuu maanta la inoo dhagax dhigo madaxweynuhuna kelmadiisa inoo oran doona su'aana madaxweynaha ku wareejiyay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dhagax dhigo guri martiyeedka gobolka Burco lagu talagalay weerarka in la waraduubiyo meeshii oo dhan loo baahnay Burco in guri wanaagsan oo guri martiyeed sharaf oo qiimo leh loo dhiso madaxtooyada iyo wixii martiya ay u yimaadeen dalkeena dadka martiyada waa gobolka Dhawaa waana aad baan ugu faraxsanahay maanta kan dhagax dhigo insha Allah waxaan noqon doonaa meel wanaagsan oo fiican oo magaciisa sharaf loo soo haysa gobolkeeda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo intii uu maanta ku sugnaa magaalada Burco sidoo kale waxa uu xariga ka jaray wajiga koowaad ee dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco isagu dhawaan soo gabagaboobay isagoo sidoo kale dhagax dhigay wajiga labaad ee dhameystirka dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco waxaana madaxweynaha warbixin buuxda ka siisay qaabka dhismeed uu yeelan doono dugsigaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa isaguna dhinaciisa ka sheekeeyay sida ay xilligan xukuumaddu diyaarka ugu tahay in mashaariic horumarineed ay ka fuliso guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan gobolka Togdheer iyadoo ujeedada madaxweynaha safarkiisu ahayd sidii mashaariic fara badan oo gobolka Togdheer looga hirgeliyay xariga uga jar lahaa kuwa cusubna uu dhagax dhigi lahaa ayaa maanta magaalada Burco madaxweynuhu hal mar dhagax dhigay saddex wado oo laamiya kuwaas oo kamid ah jidadka halbowlayaasha oo magaalada Burco isla markaana ay hirgelin doonto dawladda hoose kuwaas oo qayb ka mashruuca GPLG-ga wafdigan maanta uu horkacayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa kamid ahaayeen wasiirada wasaaradaha waxbarashada madaxtooyada warshadaha duulista hawada hawlaha guud iyo gaadiidka wasiir ku-xigeenka warfaafinta afayeenka madaxtooyada iyo waliba marwada koowaad ee madaxweynaha waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa oo caawa ku hayday magaalada Burco aan la garan doonin waqtiga ay qaadan doonto joogitaankooda gobolka Togdheer maxamed Cawad maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News Burco.